asalaamu ullaahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baan idiin salaamayaa saaxiibayaal halkan waa channelka xoogta dalka qodobada aan idiin soo gudbinaya waxaa ka mid noqonaya weerar madaafiic ah oo lagu qaaday xarunta xalane ee magaalada muqdisho tirada dadka uu soo dhitay caabuqa covid-19 ee soomaaliya oo gaartay 997 ruux webiga shabeelle oo fatahaad hor leh ka sameeyey deegaano ka tirsan maamulka hirshabeelle madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni oo ka hadlay weerarkii ay fashiliyeen ciidamada ammaanka maamulka puntland imaaraadka carabta oo mar kale gargaar caafimaad gaarsiiyey gudaha maamulka puntland maamulka galmudug oo beenisay in xubno ka tirsan xarakada al-shabaab xabsiga laga sii daayey wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya mudane goodax barre oo baaq u diray dadka magaalada beledweyne kadib markii la xaqiijiyey inaan la gaarsiin lacagtii dowladda federaalk soomaaliya qodobadaas iyo qodobo kaleeto oo aad u xiiso badan ayaad ku daawan doontaan saaxiibayaal waxaad leeyahay kuu soo dhowaada warkii oo faahfaahsan waayahay saaxiibayaal haddii aynu markaasi ku bilaabno wararka aynu ka helayno aagga xarunta xalane ee magaalada muqdisho iyo weliba garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho ayaa waxay sheegayaan in markaasi halkaasi oo ay ku soo dhaceen dhowr madaafiic oo la aaminsan yahay inay markaasi hoobiyaal yihiin ilow dadka deegaanka ayaa sheegaya in ilaa iyo 3 jug ay maqlayeen xerada xalane iyo weliba nawaaxigeeda ee lagu soo tuuray hoobiyaha waxaana loo malaynayaa in madaafiicdaasi ay soo tuureen al-shabaabka ku sugan halkaasi inkastoo aysan jirin sheegasho rasmi ah xarakada al-shabaab ayaa marar badan weeraro waxa ay markaasi u adeegsadaan qoriga loo yaqaano hoobiyaha waxayna ku qaadeen ama inta badan ku qaadaan xerada xalane oo fadhi u ah hay-adda qaramada midoobe iyo weliba safaarado dhowra xaruntaasi sugidda ammaankeeda waxaa gacanta ku haya ciidamada midowda afrika iyo amisom balse waxaay u tagi layihiin weerarada ugu imaanaya al-shabaab ee loo adeegsado qoriga loo yaqaano hoobiyaha ama inta badan aysan ka jawaabi karin toddobaadyo ka hor dhowr hoobiyo oo al-shabaab ay ku tuureen xarunta xalane ayaa dad rayida iyo weliba xoolo u badnaa geela waxyeelo badan u geystay xaafado markaasi ka tirsan degmada wadajir ayaa saameyntaasi ka dhacday weli ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi sidoo kale ma jirto cid ka hadashay khasaaraha ay markaasi ka dhashay tirada hoobiyaasha ah lagu soo tuuray xarunta xalane ee magaalada caasimadda muqdisho waayahay saaxiibayaal markaan haddii aynu eegno wararka ku saabsan caabuqa covid-19 ee dalkeena soomaaliya iminkan dowladda soomaaliya waxa ay sheegtay in dad gaaraya 997 ruux ee markaasi laga helay caabuqa covid-19 ama dhammaan ay gaarayaan dadkii qaba caabuqa covid-19 keliya 3 ruux ayaa ka dhiman 1,000 ruux ee markaasi qaba caabuqa covid-19 wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay xaaladihii ugu dambeeyey cudurka covid-19 wasaaradda waxay shaacisay 69 xaaladood oo cusub ee covid-19 taasi oo tirada guud ee ka dhigaysa 997 kiis dadka uu soo dhitay caabuqa covid-19 haddaba waxaa la sheegayaa in maanta qura laga helay dadka caabuqa covid-19 69 ruux magaalada caasimadda muqdisho dad gaaraya ilaa 39 ruux ayaa laga helay halka maamulka somalilan sidoo kale 11 ruux laga helay maamulka koonfur galbeed soomaaliya maanta qura waxaa laga diiwaangeliyey 8 ruux maamulka puntland sidoo kale waxaa laga diiwaangeliyey 8 ruux maamulka hirshabeelle waxaa laga diiwaangeliyey 2 ruux halka maamulka galmudugna ee markaasi lagu soo waramayo in laga diiwaangeliyey keliya 1 ruux waxaa lagu soo waramayaa in 48 markaasi ay lab yihiin sidoo kale 21 ka mid ah ee dadka qaba caabuqa covid-19 waxaa lagu soo waramayaa in ay dhadig yihiin waxaana lagu soo waramayaa in tirada ka bogsatay caabuqa covid-19 ay gaarayaan 4 ruux halka tirada dhimashadana ay tahay 4 ruux iyadoona gunaanadka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ay sheegtay in caabuqa covid-19 uu ku sii baahayo qeybo ka mid ah dalkeena soomaaliya waayahay saaxiibayaal aad baan idiin salaamaya markaan haddii aynu eegno webiga shabeelle waxuu fatahaad hor leh uu ka sameeyey deegaano ka tirsan maamulka hirshabeelle webiga shabeelle ayaa ku fatahay tuulooyin hoos yimaada magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hirshabeelle waxaa ka mid ah deegaanada webiga uu fatahaad uu ka sameeyey tuulada lagu magacaabo kaluundi iyo weliba tuulada lagu magacaabo maangay oo dhammaantood ka tirsan oo dhammaantood hoos timaada gudaha magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle fatahaadda ayaa saameyn ku yeelatay dhulbeereed baaxad weyn
oo dalagyada noocyadooda kala duwan ay markaasi ay saameyn ku yeesheen. Maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegay inay wadaan dadaalo looga hortagayo webiga uu fatahaad ka sii sameynayo dadka deegaanka. Waxa ay markaasi dowladda Soomaaliya iyo waliba maamulka Hirshabelle ay ka codsadeen in gargaar degdeg ah la gaarsiiyo. sidoo kale waxaa lagu soo waramayaa in dad markaasi gaar ah ay ka guureen tuulooyin hoos yimaada gudaha magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe. sidoo kale waxaa lagu soo waramayaa in ay markaasi u sii boqoleen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe, iyadoona ay cabsi weyn ka qabaan in webiga Shabeelle mar kale uu ku soo fataho deegaano ka tirsan gudaha maamulka Hirshabelle. Wayahay saaxiibayaal, markan haddii aynu eegno isla wararka fatahaadda ayaynu markaasi eegeynaaye. wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya ee Goodax Bare waxa uu baaq u diray dadka markaasi ku nool gudaha magaalada Beledweyne. dadka reer Beledweyne ayaa saameyn togan waxa uu ku yeeshay webiga Shabeelle oo lagu soo waramayo in deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan ay ku soo fataheen. wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ku boogaaday dadka reer Beledweyne badankooda in ay markaasi ka taxadaraan saameynta ka dhalan karta webiga Shabeelle inuu markale fatahaad ka sameeyo. waxaa dhowaan la baahiyey muuqaal uu ka soo muuqday gudoomiyaha guddiga gurmadka magaalada Beledweyne Xaaji Cismaan Dhagaxow, kaas oo sheegay inaysan weli soo gaarin lacagtii nus milyanka doolarka ahayd oo ay dowladda federaalka Soomaaliya ballan qaaday sanado ka hor, wuxuuna sheegay inaysan wax kaalmo ah aysan ka geysan dowladda Soomaaliya. wasiirka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Goodax Bare oo ka tirsan xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa bartiisa Twitterka uu soo dhigay muuqaal waxa uuna ku soo qoray sidatan: waxaan bogaadinayaa aadna ugu faraxsanahay in bulshada Beledweyne ay ku taabaqaadeen nabadda isu tashiga si ay fatahaadaha uga difaacaan naftooda iyo weliba hantidooda. waxaan bulshada Beledweyne u rajeynayaa guul iyo weliba isku tashi in markaasi sidoo kaleetona allana ay tala saartaan. si kastaba dad badan oo Soomaali ah ayaa ka falceliyay qoraalka uu soo dhigay wasiirka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Goodax Bare, kuwaas oo inta badan dhalisan sida ay dowladda taageero u gaarsiin weysay magaalada Beledweyne, iyadoo lacagtaasi ay ballan qaaday sanado ka hor ayna ilaa haatan la gaarsiin. sanadkii hore ayay ahayd markii kumanaan kun oo qoysa ay ka barakaceen gudaha magaalada Beledweyne kadib fatahaadu sameeyay webiga, balse markan waxa ay sameeyeen dadaalo ay uga hortagayaan maadaama ay biyo xireen ay sameeyeen. wayahay saaxiibayaal, markan haddii aynu eegno hogaamiyaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu ka hadlay weerarkii ay fashiliyeen ciidanka xoogga ee maamulka Puntland. madaxweynaha dowlad goboleedka maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ka hadlay arrimo ku saabsan ammaanka, gurmadka fatahaadaha magaalada Qardho iyo weliba xanuunka caabuqa COVID-19. madaxweynaha wuxuu bogaadiyey howlgalka ciidamada ammaanka maanta ay ka sameeyeen gudaha magaalada Boosaaso, kaasi oo lagu fashiliyey weeraro ay geysanayeen xarakada Al-Shabaab. sidoo kale madaxweynaha maamulka Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu ka hadlay arrimaha gurmadka ee Qardho iyo weliba sida ay u socoto. waxa uu u mahad celiyey dhammaan cid kasta oo ka qayb qaadatay gurmadka, gudiyadii iyo weliba dhinacyadii kala duwanaa ee markaasi ka shaqeynayay. sidoo kale waxa uu sheegay halista xanuunka COVID-19 ayuu madaxweynaha bulshada ugu digay, wuxuuna ugu baaqay dadka inay qaataan fariimaha iyo weliba talooyinka ay bixinayaan hay-adaha caafimaadka ugu qaabilsan ee dowladda maamulka Puntland. waxaana maamulka Puntland sidoo kaleeto inta badan ay la daala dhacaysa caabuqa safmarka ee COVID-19. waxaa lagu soo waramayaa in dhowr kiis oo caabuqa COVID-19 laga diiwaangeliyey dad markaasi ku nool gudaha magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland. sidoo kale waxaa lagu soo waramayaa in dad markaasi qaba caabuqa COVID-19 ay ku dhool yihiin magaalada ganacsiga ah ee Boosaaso, waxaana inta badan la sheegay in ay markaasi taxadar muujinayaan maadaama caabuqan ee COVID-19 dad badan ay la sii daalaadhacayaan. wayahay saaxiibayaal, isla wararka ee maamulka Puntland haddii aynu markaasi ku sii nagaadno, Imaaraadka Carabta waxa ay markale gargaar caafimaad markaasi ay gaarsiiyeen dadka markaasi ku nool gudaha maamulka Puntland.
diyaaradda gargaar caafimaad ayaa ka soo degtay garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari taasi oo ka timid dalka Imaaraadka Carabta. Waa gargaarkii labaad oo ay dowladda Imaaraadka Carabta ugu talagashay dadka ku nool gudaha magaalada Boosaaso ee maamulka Puntland. dowladda Imaaraadka Carabta ayaa gargaarka caafimaad u deeqday dowlad goboleedka maamulka Puntland waxaana gargaarkan ku jira qalab caafimaad oo uu ka mid yahay shaybaarka lagu baaro cudurka halista ah ee coronavirus. wasaaradda caafimaadka maamulka Puntland waxa ay sheegtay in dowladda Imaaraadka Carabta ay maamulka Puntland ugu deeqday shaybaarka lagu baaro dadka loogu sheekiyay astaamaha cudurka COVID-19. wasiirka caafimaadka maamulka Puntland ee Jaamac Faarax Xasan ayaa Imaaraadka kala wareegay qalabkaasi muhiimka ah ee loogu deeqay isagoo ugu mahadceliyay dowladda Imaaraadka Carabta sida ay markaasi dadka ku nool maamulka Puntland ula garab istaagsan yihiin. waayahay saaxiibayaal, ugu dambeyntii haddii aynu eegno maamulka Galmudug waxay beenisay in xubno ka tirsan xarakada Al-Shabaab xabsiga laga sii daayay. gaashaale sare Cabdikariin Xuseen Macalin taliyaha ciidanka booliiska maamulka Galmudug ayaa si cad u beeniyay hadalkii taliyaha ciidanka booliiska magaalada Dhuusamareeb ee ku aadan in taliska uu xabsiga ka sii daayay xubno ka tirsan xarakada Al-Shabaab. taliyaha ayaa sheegay in laga doonayo taliyaha ciidanka ee booliiska magaalada Dhuusamareeb caddeyn ku aadan warka warbaahinta la wadaagay ee ku aadan in xarakada Al-Shabaab xabsiga laga sii daayay. waxa uu sidoo kale intaasi uu ku daray in maamulka Galmudug uu dagaal u kala jiro xarakada Al-Shabaab isla markaana aysan suurtagelin in xabsiga markaasi laga sii daayo shakhsi ka tirsan xarakada Al-Shabaab. guud ahaan saaxiibayaal, warkii aad kala socoteen channelka xogta dalka waaniginta anigoo Cabdirashiid Ibraahim Cali ayaa la socodsiinayay. saaxiibayaal, warkan warkiisa xiga noole kulante